si aad YouTube channel-kaaga lacag uga samayso waxaad u baahan tahay inaad buuxiso 1000 subscribe iyo 4000 watch hour waqti xaadirkan waxa fudud inaad hesho 1000 subscribe laakiin marka laga hadlayo 4000 watch hour waxa laga yaabaa inay kugu qaadato si aad u buuxiso bilooyin ama xitaa sanadooyin waxaan weydiiyay daawadayaashayda su'aal ah ma buuxiseen 4000 watch hour natiijadu waxay noqotay mid la yaab leh in ka badan 80% qof waxay ku jawaabeen maanu buuxin 4000 watch hour halkaan anigu ku buuxiyay shuruudaha YouTube-ka 12 muuqaal kaliya waxaan ku diyaariyay mapku tusinaya wadada saxda ah kaasoo ku fududeynaya hadaad raacdo inaad sida ugu dhaqsaha badan leh ku buuxiso 4000 watch hour laakiin ugu horeyn balan isla xisaabino 4000 watch hour si aan u ogaano xajmiga uu leeyahay numbarku haddaan u bedelo 4000 ee saacadood daqiiqado waxaan ku dhufan doonaa 60 minute waxaan inoo soo bixi doonaa 240,000 oo minute waxaan u qaybin doonaa average view duration oo ah celceliska daawashada muuqaaladaada ka soo qaad inay tahay 2 minute waxay noqonaysaa 120,000 oo views taas macnaheedu waxay tahay hadduu celceliska daawashada muuqaalkaagu yahay 2 minute ood haysato 120,000 oo views inaad buuxisay shuruuda 4000 watch hour laakiin hadday tahay 3 minute waxa lagaga baahayay inaad hesho 80,000 oo views markasta uu ziyaado celceliska daawashada muuqaaladaadu waxa yaraan doona viewska lagaga baahayahay si aad u buuxiso 4000 watch hour hadda waxay isweydiinaysaa su'aalaha ah waa maxay average view duration halkee ayaan ka arkaa average view duration-kayga iyo sideen u ziyaadiyaa average view duration-kayga okay bal han ka jawaabna su'aalahan waa maxay average view duration waa celceliska muddada daawashada uu daawaduhu daawanayo muuqaalkaaga badanaa waxaad aragtaa youtuberada oo leh nala joogilaya dhammaadka ama shayga ugu muhiimsan ee muuqaalka inay xagga dambe dhigayaan si aad u dhammaysato muuqaalka taas macnaheedu waxay tahay inay rabaan inay ziyaadiyaan average view duration-kooda marka aad doonayso inaad ogaato celceliska muddada daawashadaada waxaad iman doontaa YouTube Studio-ga waxaad ka sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay analytics kadibna waxaad ka sii tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay contacts si aad u jeedo waxa halkan kaaga soo baxay celceliska muddada daawashadaada ani hadda waxay ii maraysaa 2 minute iyo 5 second haddaan ku dabaqno qaacidadan hore u soo sheegnay 240,000 oo minute markaan u qaybino 2 minute iyo 5 second waxa inoo soo baxaya 117,000 oo views oo hadda anigu waxaan haystaa 133,000 oo views taas macnaheedu waxa weeye inaan mar hore buuxiyay shuruuda 4000 watch hour okay maanta waxaan ku hayaa warka farxin doona waxa dhawaan noo bilaaban doontaa dufcadda afraad ee video editing-ka marka waxaan go'aansanay inaan 5 qof oo daawadayaashada kamid ah kooraska free uga dhigo sida daraadeed waxa laga baahan yahay saad uga mid noqoto guuleystayaasha inaad Facebook-iga follow iyo like tiraahdo 3 qofna u share tiraahdo marka waxaad number ka qabsan doontaa 1 ilaa 100 inta u dhaxaysa numberkaad qabsatayna dhinaca comment-iga Facebook ayaad noogu reebi doontaa nasiib wacan ayaan rajaynayaa si aad u ziyaadin lahayd average view duration-kaaga si aad u ziyaadiso celceliska muddada daawashadaada waxaa jira sababo ka dambeeya inuu siyaado tusaale ahaan video topic ama quality content video topic waa muhiim inaad doorato mowduuca dadku ay xiiseynayaan si aad u hesho daawadayaal joogto ah mowduuca aad dooranayso waa inaad si buuxda u taqaano waayo haddaanad garanin waxaad ka hadlayso macluumaad dheeri ah kama bixin karaysid markaa dooro had iyo jeer mowduuca aad fahansan tahay quality content haddii muuqaaladaadu quality sareeyaan uma baahan doontid inaad dadka ka codsato inay share out ku sameeyaan ama subscribe ku saaraan iyaga ayaa iskood isku saaraya maadaama uu yahay waxaad soo gudbinayso shay quality sareeya haddaba sidaad u samayn kartaa muuqaalo quality sareeya waxaad u baahan tahay inaad samayso 3 qodob good script good editing good information qodobka koowaad waa script fiican marka aad muuqaal soo samayso thumbnail-kana saarto kadibna YouTube-kii soo dhigto isla markaa waxaa jiri doona thumbnail-ka iyo ciwaanka muuqaalkaaga kadibna waa ay ku dhufan doonaan muuqaalkaaga marka ugu horeysa ee uu qofku soo galo waxa uu fiirin doonaa qaabka aad macluumaadka u soo gudbinayso marka ay ka soo wareegto 15 second ee ugu horeeya qofku waxa uu go'aansan doonaa inuu muuqaalka sii dhameysto iyo inuu ka baxo muuqaalka oo uu tago muuqaal kale 15 second ee ugu horeeya waxa loo yaqaanaa hook waana qaybta ugu muhiimsan ee muuqaalkaaga waa inaad siisaa ahmiyad aad u ballaaran ood qortaa
hordhac ku kalifaya inuu qofku dhammaysto muuqaalkaaga. sidaa daraaddeed waxaad aragtaa in youtuberada waaweyni ay ahmiyad weyn siiyaan 15 sekin ee ugu horeeya. tusaale ahaan, marka aad daawanayso MrBeast 15 sekin ee ugu horeeya waxa uu ku sheegaa dhammaan waxa uu ka hadlayo muuqaalkiisa. xataa anigu markaan qoriyo scriptiga waxay iga qaadataa saacado badan saan u qoro hordhac qurxoon. si aad u qorto hordhac qurxoon oo soo jiidasho leh ma jirto hab loo wada qoro oo ku habboon dhammaan youtuberada oo dhan. muuqaaladeeda waxaan u adeegsadaa qaacido fudud oo ka kooban 3 tallaabo, waxaana loo yaqaanaa 3 step framework. tallaabada koowaad waa inaad u sheegto qofku waxa uu rabo ama hadafkiisa uu yahay si uu u xaqiijiyo. tallaabada labaad waa inaad ku abuurto niyad jab iyo cabsi adigoo u sheegaya dhibaatada ka hor imanaysa intii uuna gaadhin hadafkiisa. tallaabada saddexaad waa inaad u sheegtaa xalka waxa uu yahay. waxaa laga yaabaa inaad weli i fahmin. ii ogolow inaan ku tusiyo hordhacayga si aad wax badan ula fahanto, aniga oo ku dabaqayna qaacidada aan hore u soo sheegnay. si aad YouTube channelkaaga lacag uga samayso waxaad u baahan tahay inaad buuxiso 1000 subscribe iyo 4,000 watch hour. waqti xaadirkan waxaa fudud inaad hesho 1000 subscribe, laakiin marka laga hadlayo 4,000 watch hour waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato si aad u buuxiso bilooyin ama xitaa sanadooyin. waxaan weydiiyey daawadayaashayda su'aal ah, ma buuxiseen 4,000 watch hour? natiijadu waxay noqotay mid la yaab leh. in ka badan 80% qof waxay ku jawaabeen maanu buuxin 4,000 watch hour, halkaan anigu ku buuxiyey shuruudaha YouTube-ka 12 muuqaal kaliya. waxaan kuu diyaariyey mapku tusinaya wadada saxda ah kaasoo kuu fududaynaya haddaad raacdo inaad sida ugu dhaqsaha badan leh ku buuxiso 4,000 watch hour. si aad wada aragtaan, waxaan ku sheegay tallaabada koowaad si aad lacag kaga heli lahayd YouTube-ka. taasina waa hadafka daawadaha. kadibna waan ka cabsiiyey daawadaha oo waxaan u sheegay inay adag tahay inaad buuxiso shuruudda 4,000 watch hour. ugu dambayn waxaan u sheegay xalka sababtoo ah anigu waan buuxiyey shuruudaha oo waan garanayaa habka aan ku buuxiyey. dabcan saan hore u soo sheegnay 3 step kuma dabaqmayaan niyad kasta si aad u samayso hordhac qurxoon. tusaale ahaan, muuqaalada cunto karista waxaa kugu filan inaad soo bandhigto natiijada kaba dambaysta ah ee uu soo baxay waxaad karinayso. sidoo kale haddaad tahay dalxiise, keliya waxaad soo bandhigaysaa uun meelaha ugu quruxda badan ee booqatay 15 sekin ee ugu horeeya. si aad u samayso hordhac qurxoon waxaad isticmaali kartaa istiraatiijiyad kale oo 100% kuu siyaadinaysa wakhtiga daawashadaada, waxaana lagu magacaabaa end reward, oo ah inaad inta ugu dambaysa ee xiisaha leh aad u soo horreysiiso daawadaha. tusaale ahaan, muuqaalka MrBeast ciwaankiisu yahay tareenka iyo godka. MrBeast waxa uu sameynayay 5 tijaabo kaasoo uu ka mid yahay tareenka iyo godka. thumbnailka waxa uu ku muujiyey tareenka iyo godka, kadibna waxa uu soo horreysiiyey inta ugu xiisaha badan oo ah tareenka iyo godka markay isku dhacayaan, waxaana uu dhigay xagga dambe si uu u siyaadiyo celceliska muddada daawashadiisa. bal ha u nimaano qodobka labaad ee ah editing. ma ahan daruuri inaan kuu sheego ahmiyadda editingka, sababtoo ah markastoo aan macluumaad sheegayo waan ka hadlaa ahmiyadda uu leeyahay editingka. xataa waxaan ka diyaariyey course dhammaystiran ood ku baran karto editingka adigoo adeegsanaya taleefankaaga. good information. hadduu scriptigaagu fiicnaado, editingkana uu fiican yahay, waayo daawadu wuxuu doonayaa inuu dhagaysto warbixintan aad soo gudbinayso. laakiin haddii macluumaadkaagu xumaadaan, cid ku daawanaysaa ma jirto. dadku waxay u baahan yihiin macluumaad xiiso leh oo lagu kalsoonaan karo. arrintaasina kuma suurtogelayso ilaa aad ogaato habfikirka daawadaha. haddaba si aad u ogaato habfikirka daawadaha iyo waxa uu rabo, waxaad raadin doontaa waxa uu rabo daawaduhu adigoo ka raadinaya komentiyada channelada isku mawduuca tihiin. waxaadna ka heli doontaa waxa uu rabo daawaduhu, kadibna shayga uu raadinayo ayaad ka soo samayn doontaa muuqaal. hadda anigu waxaan isticmaalaa habsaa ka yara duwan oo ah inaan qaybta community-ga doorasho ay ku kala dooranayaan mawduuca ay rabaan, kadibna aan ka soo hadlo ugu codaynta bata. okay, anigu waxaan ku siinayaa macluumaad lagu iibiyo lacag si bilaash ah, adiguna iima quuraysid inaad hadafkaaga gaadho oo ah 10,000 oo subscribe. keliya subscribe iyo like iyo share isku raaci si aan macluumaad intaa ka qiimo badan aan ku soo gudbino channelka. muuqaalkeenu intaas ayuu ku eg yahay. waa inoo iyo kulan dambe oo xiiso leh.